مساكين مركز ريمي نيك ودو عيال مركز سيب حياة ما قال جيه بس يبرا وين مرانو كيلو تبرا هي كيلو سكر على سيسيا حسابه عجيب وقته مركز الدعاء دي بيقول ريبا سند جينيك وكذا ماضي حولي سي وزي زيادة سند يبرا حولي هذا الوزي زيادة نبي موسى شيء دوكا يا قال لي لا سند ما نقول دوكا marka sanad laba sano uu yimid gobolka innabi Muuse sanad badi sheegtay hayde hore meel kala dhigan la markaas innabi Muuse oo adiga ma ahayn arrintii meel kale wax ka socdaan bariikaadi ilaahay buu munaajo ilaahay ma ku yiri waru Allah sanad baa laakiin abdoomahaygi ayuu todoba albaab u furay anigu meesha ka liitaa bilaahay ana waan furaasay من ربع إسرائيل أيا لصالح ونكسب وهاي فقيرة ولا فقيرة قبل ونكسب إلى هاي موسى الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة من البيد الرشد والرحية راح هذا البيد اللي نكيه هذي نكيه لهاي قبل ونكسب ودين إلى هاي كوها جاية اللي بعدين وصل كاسر الرشد ولا سير وكذلك ربع إسرائيل لي ونكسب وها لما النساء لكن كسي ونكسلين بني حاسس فرجع أنا كمل أمي يريد نرشي ونبوها كان ساعيات كده وين بدنا يا معيشة دني ما بيرسو وبتجينا وين بتن فرجع سيكون النبي موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام بحال كده هجنة بعد إله المبرد زي هذا الكتير markaas uu tagay nabi Muuse ilaahay ma barin uu dhinacan ka saaray oo iska muslimiinta kamida nolosheedu waa ciriiri waa canka way adag tahay oo bar ilaahay markaas nabi Muuse ilaahay uu munaajoday ilaahay uu waxyoodo ku yiri ya Muuse adoonkaad u ducaynaysa ilaahay nolosha u waasici waana waasicina una bishaarayba lagu yiri saacada laga bilaabo noloshiisa way beddelmaysaa faqrigii uu ka baxaya qiina iyo barwaaqo cagaha la galaya laakiin waa sanad meel u soconaysa barwaaqadaas ee mise u soconaysa سنة وحي قدم بها يوم قلنا قلنا صبر لمن يزيه وشيء تاريخ لنا هو ملابط بركاز النبي المسلمين هو يقول والبعاد والله هو أكبرين برواقع العقاء لك شيء حتى إن برواقع يقول بلابطين وانا سنة قاعد يقفل يجيس بركي وسنة كي انت على الجانب ودمان بنيك مليونير مرضنيك أمر بلوت صدح بلوت شلح بلوت وضبط بلوت ما ممكن بقوة يدبيديس حاسس يسيبها كنت الورياء وسنة قديمة تضرب بلاد مكاتك شاب بلاد بقول لمن شاب بلاد قد الفقر يجيب قصة مقنع الناس ومش لقيناها هذا هو إحساس أنا بقول الإحسان لا تكون إحسان صباحي وغبرتا وحتلسي وهرجع رجع ومساكين وحسين وهرجع على وحسين ولما ترى كوسو جديدين لكن ميجا كي من المساكين تا مجالات يريد لنا سوق لا يأكل وقدس بيت هذا هو وقدس أكل كا برجع سوق لا أنا أكون ميدا برجع أنا أكون بدشاء برجع سيب حياة ناسي مرانو كيلو تمر كيلو سكر وسيب له ريد بي بدي أو بي أنا بقولي أكل كروح وقدس هذا المال تنضبه وضع يكسر سوق يمنيس حاجة برجع تنضبه يريد بوسه أكل كنا تدور الباب dadkii masaakiintii marka reebiga ninka uu duceeyay marka si baxaya ma qal geeyay si mara way marano kiilo timir iyo kiilo sokor la seesiya xisaab waa ajib waqti markaas ducadii bay ku reebaa sanadkii ninka uu ka dhamaaday xoolihiisii way sii ziyaaday sanad iyo bar xoolihi hadda way sii ziyaaday nabi Muuse sheedu ka eegaa la sanad baa lagu yiri marka sanad laba sano uu yimid gobolka innabi Muuse sanad badi sheegtay hayde hore meel kala dhigan la markaas innabi Muuse oo adiga ma ahayn arrintii meel kale wax ka socdaan bariikaadi ilaahay buu munaajo ilaahay ma ku yiri waru Allah sanad baa laakiin abdoomahaygi ayuu todoba albaab u furay anigu meesha ka liitaa bilaahay ana waan furaasay إحسانك عجيب إنفاق
xoolahaaga meel fiican ku bixisaa ee dhaqaalahaaga waqtigaaga meel fiican aad ku bixisaa ee xubnahaaga iyo dhallinyarnimadaadana meel fiican aad ku bixisaa ilaahay noloshaada isagaa ku hagaajin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa nabiyu raxma adduunka o dhan baa loo soo saaray raxmad inuu noqdo bini aadamku waxay u baahnaayeen nebigu waa arkayay laakiin halka uu ka bilaabay nebigu risaaladiisa u fiirso wuxuu ka bilaabay inuu nebigu dadnimada runta hagaajiyo dadnimada dhiso dadka hadday hagaagaan adduunyaduna way hagaagi dadku hadday hagaagi waayaan nolosha adduunyaduna u hagaagi mayso markaa nebigu dadaalkiisa waxau ka bilaabay inuu bini aadamka hagaajiyo mise inuu dhulka hagaajiyo ya inuu dhulka hagaajiyo kama bilaabin wuxuu yidhi arladoo dhan baa la isoo duubuu nebigu yidhi aniga mashaariq alardi wa maqaaribihaa baa intoo lasoo qabtan lay tusay milkiga ummadayduna buu nebigu yidhi hee halka lay tusay oo dhan bay ummadaydu gaarsiin doontaa buu nebigu yidhi dowladeeda islaamka waxaa kaloo nebigu xadiisku ku yidhi waxaa la ii bandhigay khazaa'in alardi in la ii soo saaro anaa iska diiday oo ilaaha may anu adduunye ma doonayo hadday manaafic leedahay adduunyadu in ummadda adduunye looga bilaabo noloshooda nebigu isagaa adduunyada qaadan lahaa laakiin nebigu adduunya ma qaadana diin buu qaatay ummaddana nebigu xagga diinta buu ugu yeedhay dadka iimaanka iyo acmaal iyo diin buu nebigu ka dhisay iimaankoodii iyo camalkoodii markuu dhismayna noloshoodii adduunyada markiiba ummadda waa iska dhisay innaga maanta marka alle markii wadaadu diinka hadlayo waxaan moodaynaa inuu qabriga waxay ka dambeeya kaaga warramayo war diintu noloshaadana kaaga warramaysaa noloshaada kun lii kama uriidu aqulu laka kama turiid xadiis alqudsi ilaahay baa ku leh war aniga sidaan doonayo inay aadano haddaad ii yeeshin sidaad adiga doonaysa annagaa kuu yeelana baa ilaahay ka yimi nolosha dhan ee adduunyada sirta nolosha maanta aan raadinayno war sida ilaahay kaa rana uuma yeelaysaa oo intaa sidaad doonaysa adiga ayaa kuu yeeli ilaahay baa kuu yeeli aad nolosha la fahmi weyda markaas dadkoo dhan nolosha waa fahmi lahayn koona maxaa la fahmi waayeen laanna ilaahay bayna fahmi lahayn naga muraadkii ilaahay kaa lahaa bal adigu fahmi weyday dee nolosha markaas yaad ku fahmi markaa bal ninkaa reer bani israa'iil qisadiisa u fiirso waxadithu can bani israa'iila walaa caraj waana macquul qisadaas waaqicna weeyaan 7 albaab waa doomahayga u furay baa ilaahay anaguna ma isaga xillitaa baa ilaahay albaabada naxariista u furay baa ilaahay ما نقصت صدقة من مال من حول صدقة لقدي بي اسمه دي من هذا أنا كسر عدد بحسين وحسك دماء لكن محمد انتو داتين وكلية إلهي ما قد داتين حول صدقة لقدي بي اسمه دي من هذا يراتين بس على ذلك تاو كدسو هذا نرشينا ولا ليال سيدا إلهي دوني أمس عنه سيدا ندوية ربنا مركا إلهي سيدا يبقى يا أيها الرسل الله يدي كل شيء عبدي تريد وأنا أريد ما يكون إلا ما أريد إن أضعتني فيما أريد آتيتك ما تريد إلهي من الحديث القدسي أدون كيفيهم أدون سبع دمع أنا سبع دمع سنعي سيدا أدون أدون يسعرنتو مدع يسمر والبي سيدا أنه أدون يعرنتو نقول يسا إن أضعتني فيما أريد آتيتك ما تريد sida aan doonaya haddaad ii yeeshid sidaad adigu doonaysa annagaa kuu yeelanada ilaahay kariim diin buu nabigu ummadda ku toosiyey noloshooda diin faqiirkii diin buu ugu yeedhay taajirkii diin buu ugu yeedhay ogaaskii diin buu ugu yeedhay caalimkii diin buu ugu yeedhay reermigii diin buu ugu yeedhay reermagaalkii diin buu ugu yeedhay dadku diintii markay raaceen ahee noloshooda adduunyada waa iska hagaagtay markaasa nolosha muslimiinta caadigii nebiga caadigii nebi maxamed caadigii abibakar caadigii cumar caadigii cusmaan soo soco waxaa lagu bineeyo lagu dhisay alla ka baq taajirka ilaahay buu ka baqay faqiirka ilaahay buu ka baqay madaxa ilaahay buu ka baqay dhalinyarada ilaahay bay ka baqaysay dumarka ilaahay bay ka baqaya mujtamaca ilaahay buu ka wada baqaya qof walba qofka kale xaqu ku lahaana saddex yar buu ku helay markaasa madiinata almunawara hal xadiisu nabigu madiine uu ka sheegay ayaa qof miskiin oo faqiira magaaladii madiine laga waayay cuudu lmariid atcimu ljaa'ica fuku lcaalimu nabigu inay laga bukoono ziyaarta
qoys reer madiina hadduu qof ka bukoodo magaalada madiina oo dhan baa soo ziyaaranaysa baa leeyihi ilaa loo maleeyo inay magaalada madiina waxa dad degan oo dhan qaraabadiisi qofka ay yihiin qaraabana maaha waxay ku xidhiidhinayaane islaamnimay ku soo buuqanayaan oo nin walba xadiiska nebigu ku camal falaya cuudu lmariid kiinay naga buka ziyaarta wa atcimu ljaa'ica kiina gaajoonayana cuntaysiye bu rasuulku markaasaa magaaladii madiina qof sidaa la dhaga waayo qof sidaa laga warsanaya sidaa way lahaayeen iyaku laakiin ilaahay bay hoos lahaayeen bas habeenkaysaa lahaayeen yabkuuna fi lleyl habeenkaygu ooye dadka fuqarada magaalada madiina ku nool dadka markay hor joogaanna way dhoola cadaynayeen ilaahay habeenkii markay hor joogaanna way ooyi jireen innagana maanta keena baahan bani aadamka hortiisa ayuu baahi ku muujiyaa ilaahayna saac daqiiqo ma baryi karaayo magaalada madiina xadiiskaasay ayay ku dhaqmeen markaasaa qofkii bukalana wada buuqanaya kii gaajoonayana baahidiisi la laanna nabigu sal lla ly slam ummadda xagga diintuu kaga toosiyay wax walba qabiilki diin baad u baahan taajirki diin buu u baahan yahay laanna diintu iyadaa ku toosin wa inahu la kitaabu ilahay kitaab casiiz oo ku siiye soo ma diintan iyadaa ku cisay raacu diinta bas sida diintu jiro u soco sida caqligaaga ha yeelin caqligaa ku soco caqliga gaala ku socotay way lumeen muslimku caqliga kuma socda cilmigu ku socda cilmigu waa qur-aanka iyo xadiidka dadkii cilmiga raacay taariikh fiican baa ka adhaan dhulka inay dhinteen ba la moodi maayo waqad maata qawmun wamaa maatat fadaa'iluhum waqad caasha qawmun wahum fi nnaasi amwaatun bimashaafir dad way dhinteen laakiin fadaa'ilkoogii ma dhiman taariikhdii wanaagsaneed ummadda uga tegeen ma dhiman dhaqankii wanaagsanaa ay ummadda u jeexeen kamay baabiin iyakii way dhinteen laakiin ilaa yowmina haada waa loo ducaynaya ilaahay baa radihiisa loo weydiinaya waa loo ducaynaya waa loo naxariisanaya waa la ammaanaya waa la hadalaya dadna way kula nool yihiin maanta dadka dhexdoodana way dhisan yihiin baa leeyi way nool yihiin laakiin noloshooda macna kuma fadhido waxaan adduunka wax taraynay kusoo kordhiyeen adduunyada dhaqan xun iyo hadal xun iyo ficil xun ayay ummadda ku dhex beerinaya marka waa ummad dhimatay ummadda ma noolo ummaddu maanta inta badan marka diintu walaalayaal waa maxay diintu waa labada war waxana waa macruuf ee la kaalay waxana waa munkar ee ka xaq macruufkii haddaad la timaadinna hee noloshaada adduunkiya taakhira kugu hagaagaysa markaasaa ilaahay ku leeyahay waxba kaa dooni maayo ada wax kula doonaya maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliima ilaahay baa inagu leh warani cadaabkiinu muxuu qabanaya haddaad shaakirin noqota haddaad adeecdaan ood shaakir noqotid ood ilaahay rumaysid cadaabki ilahay cadaabku ba cadaabayo muxuu ilaahay ka dhigaya markaas ilaahay innaka u baahan diintiisana innaka u baahan kalluunku badama isaga u baahan mise ina u baahan ya hadduu yidhahdo waan kaa dareerayaayo mudaharaadu samey ka waran noloshiisa biyaha ku xidhan sida kalluunka noloshiisa biyaha loo dhexgeliyey ayaa nolosha bani aadamkana diinta islaamka loo dhexgeliyey noloshaadu diintay ku jirta nolosha macaankeedu waa diin law yaclama almuluk wa abnaa'uhum maa naxnu fiihi lajaladuna bisuyuuf ibraahim aladham raxmatullaahi calayhi 3 habeen iyo 3 maalmood asagoo aan waxba cunin bu haddan hadalkaa lahaa hadday boqoradii dhashoodu ay ogaan lahaayeen nolosha aan dareemayo macaankeyga seef bay nagaga qaadan lahayn laakiin ma karaya nolosha macaankeygu maaha adduunyo badan oo lagu siiyo nolosha macaankeygu maaha nolosha macaankeedu aqalo waaweyn oo lagu dhisa maaha nolosha macaankeedu maaragtaane gaalo oo la daba socdo maaha nolosha macaankeedu waa ilaahay oo garatid weeyaan alaa bidikri illaahi macaanka nolosha ilaahay xidhiir fiican la yeelo bas hasiidin xarigga ilaahay zamanka maanta aan ku jirnana maadaama macaasidii ay badatay
عقوبتي ويسوس ياليسا عرض إلهي ولا معروض إلى فرقاس إلهي يقول الرحمة دي سيقولنا ما يعني حديث الرحمن مفلس أسماء الله الحسنى مدعو الله الرحمن مدعو بين الصبور الرحمن عليه ومعي وقال لي إن حديث تسوى بيد أنت اللي تجوبه خالد يقولنا يقالين ده وياه أدوك أنت اللي تجوبه رحمتي سأخصعنا عندك سماء عندك ما ليلي وابك قيامك هي عندك اللي بك لبحيا لكن أدوك دشينا وأنا حريص تيسا وأنا حريص ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لكن أنت اللي تجوبه وأنا حريص تيسا أبيك وأنا حريص تيسي ودود وأنا حريص تيسي بيه وأنا حريص تيسي أود وأنا حريص تيسي مالك وأنا حريص تيسي أرزاقك وأنا حريص تيسي رب وأنا حريص تيسي روش وأنا حريص تيسي عظمك وأنا حريص تيسي وإلا هدين لإيجا عني هدين لإيجا عمل أنكم متيسنين أدوية كنت الجوي كرنامات معي كما أدوية الجوي الزمن كبولي من أوبلا واجتمع ما أدوية الزمن كان أوبلا يا عالمكم إلى الدقيقة أدوية كنت ولادان حق من بلد وحكسوا كل يا أعمال وذكرت من القرآن إلى ما وشك قوم لوط ومدن بلغوها لها فعل كاكيريا فعل لوط وعقوبة اللوط قرسين لغوها لها صدح نوع ما يهيد بالليل أولا العقوبة انت يكون علم إنها إلى هاي كقاضي عقوبة الله لنا نلك لنبهي عقوبة صدح هذا الروب نار أي سبق الله لك وفعل كاير بدي مادين قوم مدين قال لما لو حاول دارين بالليل مكيال تجارة دولة أي غش يا خيانة كبايع مشترين هي كانوا والله علاقو أصحاب الضلة روب نار يتولى الضلة هوس كاني أي دوش الله يجي روب نار قلب عمل يدبلوها لكن أدوك لك كمان أي وقلب الزمن كلا الدول أي هلاك كل متيستين ما أنت أي عالم قبل كي يدور أنا يا مانت لكن معلق إلهي نقول له نفس رحمة ديسا ما عريس كده أقول رحمتي تتحيبها على التقي مع صديق قلت له إله ما قبطها الناس لا يقول أنا أبدا أبو وتقبو حتى أنا أبو وتنا أبو كي أنا جيد أبو مالو مسوي يعني طبعاً دائما النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً مرفوع الروح مرفوع إمامه قولي ممكن جري المصلي يسوس لا تجرون تقول جري بركة ولد الله الروح من حريصه وقد قالوا على بركة رجل عائشة رضي الله عنها روح مرفوع ما دنا نبي الله وجهه الله بدل ماي ووعد صلاة الله بري ما بشاي محاجر ماليش مو الروح والرحمة هاي بركة النبي يقول عائشة ومرد ما الروح قالوا على جيبه كيف وضلوا على والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كأعماش ما تدك كسر كل سنروش يا أولاد يا أعمال أنا الله أقول جو كرنا الله لكن حريص إلى يوم جونا أنا تعرف وأنا إله الرحمة دي سكوب بيننا أو توبت كنا توبت كنا لو بعيا من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله العاد أنت قلبك تصور وخليك أصور ولا ربي إلى هاي سنة أصور قال له توبت كده توبت معها أنت توبت عامة لو بهاي المسلمين تنبيذ كنورنا توبت كده وإلا آيات قال لنا تسمى آيات هذا قال لك يا عمو قال هون ما قالوا يقولي لكن أنا قال لنا يا ودك كده وصوت عليه تقول هاي الله هذا تقول أنت الله حارس أنت قال الله عينك عليه أمين وتضعفا أنا قلت هذه كلمة لكن لا يعمل إنسان رسالة وأنا توبت كده والدبات عديت بعد حاجة لا أرضى حاجة لا هي لا أرضى نفروا إلى الله حاجة لا هي لا أرضى وإن قرأك الآخرية وإن صدقت البحية وإن لطوبت كنا وإن ليلة الذنب جين قلنا عقوبنا كيني ذنب ما قال دعوة إلى التوبة يا أمة ما توبة هذا توبة المرض اللوية النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كمنه
magaalada madiina dhex maray wuxuu yidhi yaa ayuha annaas udkuru llaha ilaahay xasuusta buu ku yidhi magaalada madiina nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo magaalada madiina dhex wareegay maxaa u malay yaa ayuha annaas udkuru llah war ilaahay xasuusta ilaahay xasuusta ilaahay xasuusta جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة وحاتم ديب النبي يقول تي قلوبت بني آدم كالقلقلة يصير روح يسي وصورة قيامته وما يصير أرقق حويان هذا تي كلا كل حكت بحثك